sida u jeedaan hadda waxaan diyaarsanayaa boorsooyinkaygii anigoo u kici timi doona dhanka iyo shabeellaha hoose safarkaas daawadayaal waxa ku daawan doontaan waxyaabo aad u muhiim ah waxaana ku baran doontaan waxyaabo qurux badan idinka hor dhicmay daawashada laakiin waxaan hadda diyaarsanayaa tuutahaygii sida arkaysaan kani waa direyska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u bixi doonaa safar waxaan raaci doonaa kolaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama aad raacayso ciidan waa inaad isu ekaysiisaa ciidamadii dhulku adiiranaya cusoo dhuunta iyo cadawdood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaagano dhiiranaya dhacdayaab labay naftu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhilo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidiyeen هداي داوديال waxaan gashanaa dhar shiciba waxaan u diyaar garoobay inaan gashto dharka laakiin hadda saa arkaysaan waxaan gashanahay dreeskii lagu yaqaanay astaanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saa wada arkaysaan waa kolonyadii safarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee safarkana la baxay waxaan u tagi doonaa mid kamid ah askarta u taagan inay qarankooda difaacaan kooxaha nabadgelyada nafl caariga maleeshiyaadka al-shabaabna xididada u siibaan soo magaca guuleed saaqadan guuleed waxaad ka mid tahay kolonyada ciidanka u baxaysa hawlgalka dareenka horta ka war wallahi oo dareenkayga maanta ma qiyaasi karo anigoo marka hore aan qoriga soo qaatay dalkayga iyo diinteeda iyo dadkayga inaan difaaco insha Allah ta'ala waxaan jecelahay inaan xoog qaranka Soomaaliyeed meel walba inaan difaaco guuleed waxaad ka mid ahaan doontaa ciidamadan raaci doona ee hawlgalka wada aadi doono waxa inoo jiri doona sida daawadayaasha aan u soo horqoysi doono inaanu soo gudbin doono tan iyo intaan u soconno hawlgalka ilaa aan ka gaarno meesha guuleed markaad la shaqaysatay ama ciidankaaga ama dareenkooda wasdi wallahi oo ciidankayga dareenkooda aad iyo aad mar walba waa meel dhaxa weeye insha Allah waxaan jeclahay si isku dareen u baanahay isku hadafna waa nahay insha Allah cadawga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa ka guuleysan doonaa sidaan jecelnahay hadeertaana waan dhaqaaqi doonaa hadii Ilaahay raalli ka noqdo kaasi waxa uu ahaa guuleed oo kamid ah ciidamada aan kala qayb noqon doono safarka guuleed waxa uu inoo sheegay inuu u diyaar yahay inuu difaaco qarankiisa waxa inoo socon doona oo bartan ka bilaabmi doona safar aan ugu kuurgalayno xaaladda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee har iyo habeenba heenka ugu jira sidii ay u difaaci lahayn qaranka isla mar ahaantaana xididada u siibaya kooxda caadaystay dhibka shacabka Soomaaliyeed maleeshiyaadka arxanlaawayaasha al-shabaab ciidamadii dhulku adiiranaya cusoo dhuunta iyo cadawdood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaagano dhiiranaya dhacdayaab labay naftu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhilo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba weli waxaan ku jirnaa safarkii ciidamadii dhulku lagu magacdaray hawlgalka hirgalay waxaanu maraynaa hadda oo la socoteen anagoo ka soo baxayna magaalada Muqdisho saa wada arkaysaan lama socoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxay ku socdaan kolonyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo khaliya waxa ay safarkan ku tagi doonaan ilaa furinta hore ee dagaalka daawadayaal saa arkaysaan aan hore idinku sheegay waxaan u socon doonaa safarkaasi annagoo ku tagi doona furinta hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay xididada ugu siibayaan kooxda caadaystay dhibka shacabka Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka al-shabaab haddana waxaan fuulayaa gaariga عبد بالله وعيدك حوجة دلك الصومالي أي وساريين ما بروف هدي أركي جرتين وريال لو قاعد بروف ما عبد بالله عيدك حوجة دلك الصومالي قالوا مريا ويا جيسيال أن سوتش يسندون إلا أنت يحدد وسيبيان نبديتك على الشباب